Assalamu alaikum, rahmatullah barakatuh. I'm here with one of the Somali refugee who is currently residing in Hungary, and it's a sad story, to meet people and the way they really had suffered what they've endured in Hungary. And I would like to start the interview with him, and this might help people who really want to see the real picture of what's going on in East Europe and what the Somali people have underwent, during those circumstances. And welcome, please. And it's called Abdulaziz, and it's one of the Somali refugee who is currently, and here he is. So what can you tell us about Hungary, and what would you like to share with your Somali fellow citizens, who would love to know exactly what's going on in Hungary? I don't know what's I think you have to bear with us because his English is not perfect, and we'll love. He's gonna speak most of it in Somali, but I will try to translate later on as he finishes his interview. And I'm forced now to do the interview in Somali, and I'll try probably to translate later on. maxaa u sheegi lahayd Soomaalida bahalka walaalaha ay jecelnahay Hungary ama East Europe ama dhibaatada ama xaalka sida uu yahay? xaalku waxa weeye xaalku meeshan dal maaha iska xun yahay, dhibaato meeshan ugu haysata, ilaahay naga fujiyo, hurdina way haysaa, laakiin mushkilad maaha, dadkana waa la hadli doonaa. adiga hadda qofka kale sawirkaaga arko wuxuu maleynayaa tahay qof ma aragtay meesha ku waashayo waa ugu waashay wadda meesha ugu dooqay. adiga sidaad rabtay ka timid Soomaaliya dhinacay ka timid? Romania la soo baxay aniyo racing number wuxuu ka imaaday from Romania. Romania ka imaaday wuxuu ka soo baxay Romania. may Soomaali dhinacay ka yimid? Soomaali dhinacay ka yimid? wuxuu ka imaaday Hargeysa. Hargeysa. Hargeysa ka imaaday Hargeysa. waa ujeedaan u maleynaa kulleyto xaqiiqda jirta waan aragtaan kulli wiilkan sidoo hadda uu egyahay. qiimaha dadkan daawanaya waa ayda marka ni waxay u ciyaaraysan way wallahi bilaa kala ma fahmino marka kulleyto sida hadda uu sheegay kulli uu ka dhacsan yahay oo macnaha ka dhacsanaana ma aqaan hadii Soomaali ahaan u fahmi doontiin waa ka dhacsanay ma fahmino marka wala Mark, wallahi, I think the way you can see, it seems that he's mentally disturbed. warka ka dhax galay ninkan saaxiibkii waxaan kusoo bartay dalka Romania. anoo joogo muddo bil camal ah, wuxuuna ka imaaday dhinacaas iyo Suuriya. waxaan u dhaxay sheegay dadkan sheegay Hargeysa nin leeyahay Romania ma galay nin leeyahay oo soo maray Turkiga, Bulgaria, Romania. نقدر معانا نقدر والله انت والله هذا ولا لا بس ولا لا رجع قاركود وحي ربا inay soo dhoofaan soo taariiba ee Soomaaliya wado هذا نحاجه صباح بس انا نقدر I think it's so clear, and قفوا الله كان صبري dadka walaalaha soo taariibro خرسوا تاريخ اسكريم من وشك كاي وشك راح مش اسكريم من ما ده ninka warka ma inta qofka qadka saar caadi uu wada jira life way waranta ما انت صحف لي دوني maxay ngeeydiis ninka Abdulaziz wuxuu ka imaaday asalkiisa reer Qadar, wuxuuna aaday Soomaaliya, wuxuuna ka imaaday dalka Syria, wuxuu soo maray Turkiga, Bulgaria, Romania, Hungary. وجدنا مرينا فيسكيس dhibaato meesha ku qabsatay meesha isku imanina بري وعليها ومحكمة دينا لسارة والوطن كمان
I think the way you can see it's so clear, and my friend he seems to be mentally disturbed, and it's probably what he has went through here in Hungary, and for the long trip that he underwent, you know, coming from Somalia. Okay. And I would just love to say and, you know, tell my fellow Somali citizens that, you know, you guys, you better watch, you know, when you pack your suitcases and, you know, try to take off and probably come looking for better life in Hungary, you know, not only in Hungary but the whole of East Europe. And it's good that if you guys try to stabilize your own country and get a better meaningful of whatever you're doing wherever you are in this world, you know, because running away does not really solve the problem. And the way you can just see it from my friend, he's absolutely gone. I mean, look at his hair, you know, look the way he looked like, you know, and it's really sad, you know, it's a sad story, and that's why I really wanted to show a clear picture of what people and what they are really going through, you know, in this country. And I think it's going to really help you guys and, you know, make you think twice before you make any decision of coming to Europe, you know. And you might think that, you know, we are just playing with you guys, or you might think that, you know, there's money everywhere, you know, there's prosperity, but that's not the fact, you know. Because what you see on TV and what you hear is not the real picture, you know. By seeing highways or by seeing skyscrapers does not really solve your problem, you know. As a refugee, you came here looking for better life, you know, and that does not happen, you know. Not here, not in West Europe, and not in America. So, you guys, I think it was a helpful interview, and I hope it's gonna help. So till then, take care and have a nice time wherever you are.